kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan kusoo dhawaada mar labaad muuqaal cusub muuqaalkeen waxaan diirada ku saari doonaa dad beenaalayaal isla markaasina beenwaasina oo fiis ku raadiya dhimashada walaashan Yurubgeenya iyo sidoo kale dad badan oo xanuunsan oo dhakhtar ku jira isla markaasina ay ku sheegaan inuu geeriyooday qofkaasi hadaba daawadeen waxaan idin la wadaagi doonaa channel aad u tira badan oo ka soo hadlay geerida Yurubgeenya isla markaasina been ay tahay iyo wax aan sal iyo raatoona lahayn bal la eega daawadayaal dhamaantood daawadayaal waxay ka soo wada hadleen geerida Yurubgeenya oo faaga isla markaasina beena hadaba daawadayaal waxaan ka codsanayaa idinka iyo bulshada Soomaaliyeed ee idigu xiran inaad ka digtoonataan waxyaalaha beenta ee lagu marin habaabinayo dadka Soomaaliyeed misna loogu oranayo qof Soomaaliyeed oo nool isla markaasina sariir yaala la dhahayo waa uu dhintay iyagoona taamleela beena sameystay isla markaasina soo gudbiya fiidiyoyo badan balse daawadayaal halkan waxaan kala hadlayaa isla markaasina fariin u diraya dhammaan YouTuberiska soo dhiga waxyaalaha beenta isla markaasina faaga ee ay ku marin habaabinayaan bulshada Soomaaliyeed isla markaasina ay beenta u sheegayaan dadka sariirta saaran ee xanuunsanaya beenta ka sheegayaan isla markaasina ay beenta u sheegayaan dadka Soomaaliyeed ee ku xiran hadaba daawade adiga daawanay waxaan ka codsanayaa in aan daawan cid kasta oo bulshada marin habaabinaysa isla markaasina ka sheekanaysa wax beena oo aan sal iyo raatoona lahayn hadaba daawadayaal waxaan doonayaa inaan ka hadlo walaashan Yurubgeenya oo u baahan in loo soo duceeyo isla markaasina sariir saaran in la yiraahdo waa been daawadayaal waxay nagu tahay gaf iyo sharaf ka dhac hadaba daawade waxaan idin sheegayaa in aydan dadkaasi kor u qaadin isla markaasina aydan fees badan siinin waayo qofka YouTuberiska waxa uu leeyahay markaad beenta sheegto berito waxaad ku heli doontaa fees badan balse laakiin ka fakari maayo aayaha dambe channelkiisa iyo faniska quruxda badan ee ku xiran ee markasta aad u daawada balse beentani aan fahansanin hadaba daawadikan waxaad ka digayaa in aad beentaasi iska deysaan oo isla markaas daawadayaal waxaan ka digayaa in aydan beentani aaminin oo aad iska deysaan hadaba daawadayaal waxaa jira YouTubers badan oo ku shaqeysta been abuur iyo sidoo kale in mar habaabiyaan bulshada hadaba daawade adigaagan daawanaya waxaan ku sheegayaa in ay yihiin waxaasi been oo aanad aamini karin waxaa jira channel badan oo maanta iyo shalayba ku soo qoriyay in Allah wa inna ilaahi raaji'uun waxa dhimatay Yurubgeenya kuwaas oo been ka sheegay dhamaantood iyaga laakiin se kama fakariyaan cid daawanaysa waxa daawanaya waalidiin waxa daawanaya caruur waxa daawanaya dad jilicsan isla markaasina ka naxaya hadalkaasi oo naxdinta ay qaadaan xanuunsan karaba daawadayaal marka idinku waxaan idin sheegayaa in aydan dadkaasi subcad u yeelan isla markaasina kor u qaadin isagana waxaan kula dardaarmay qof kasta YouTuber oo isagu markaasi bulshada u soo gudbiya waxaan nafacaad lahayn isla markaasina beena sal iyo raatoona aan lahayn horumarna aan ku helin waxaan leeyahay warwal aakhir way dambaysaa iska daay beenta hadaba daawadayaal Yurubgeenya saacadan aan kula hadlayo waa inoo shaay waa inay caafimaad qabtaa isla markaasina dhawaan ay soo kici doontaa hadii Ilaahay ka dhigo balse daawade waxa kaliya oo ka dhiman ducadaada inaad u dacayso walaashan Yurubgeenya isla markaasina daawadayaal waxaan idin sheegaynaa in waxyaalo kasta oo ladin soo gudbiya ay jiraan been waxyaalo kasta oo ladin soo gudbiya ay ku jiraan waxyaalo beena balse daawadayaal anagu maanta waxaan ka hadlaynaa xaqiiqo dhaba oo aan soo aragnay isla markaasina aad indhihiina dadkuna ku wada aragteen daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalkan si shirkaleysaan soo gaadho dad badan oo la marin habaabiyay isla markaasina qaatay in ay Yurubgeenya dhimatay laakiin waxaas waa been wax sal iyo raatoona leh ma aha daawadayaal idinkana waxaan idinka digayaa in aydan muuqaalada noocaas kor u qaadin isla markaasina commentiga aydan ka bixin horena aydan u wadin daawada waxa kaliya walaasha ka dhiman waa duco adigu halkii aad u ducayn lahayd yiraahday waa dhimatay waxay sababi kartaa in ay walaasheen isla markaasina niyad jabto iyada dad badan oo family-geeda faniskeeda macal miyaanad ka naxaynin balse daawadayaal dadkani beenta soo gudbinaya waa dad fiis raadinaya wax hore loo yiri nin meel u caday meel ka madow balse daawadayaal waxaan idinka digayaa faniskeyga qurux badan ayaan u sheegay isla markaasina uga digayaa in aanay dadkaasi daawan isla markaasina aanay kor u qaadin wax horumarana aanay dadkaasi yeelan doonin hadii ay saa ku sii wadaan iyagana waxaan uga digayaa dhamaanba YouTuberiska yaryar ee ka hadla arrimaha noocaas in ay ka digtoonaadaan wixii beena oo aanay bulshada marnaba dhagahooda ku ridin wax beena oo marin habaabiya laakiin si waxa laga hadlaa wixii xaqiiqada waxa jira wadooyin badan oo aad ka hadli karto xaaladda walaasha Yurubgeenya balse hadii aad adigu tiraahdid waa dhimatay dadku maxay aaminayaan balse maxay dhahayaan faniskeedu maxaasay dadku dhahayaan xageysay wax ka bilaamayaan hadii aad adigaagii wax waday ee faniska quruxda badan lahaa misna bulshada badan lahaa waxna u soo bandhigi jiray aad tiraahdid
Yurub ay dhimatay iyaguna ay saasi kugu aaminaan daawadayaal intaaseen muuqaalkeena ku soo koobiya balse waxaan mar labaad iyo mar saddexaad kula dardaarmaya in aydan aaminin dadka noocaas in aydan aaminin muuqaalkan intaasaan kusoo gabagabaynayaa daawashadii kugu horeysay muuqaalkan daawatid waxaan ka codsanayaa inaad u sheergeysid dad badan